intii wacan wanaagsan daawadayaasha Nabad TV waa mar kale iyo barnaamijkeeni aad alaaba uga barateen maalin kasta oo Jimco ah oo magaciisu ahaa xogta saxafiga. barnaamijka xogta saxafiga maanta waxa idin soo jeedinaysa anigoo ah Asmar Cabdinuur Asmar Degan waxaana ku suganahay stuudiyaheena aan ku leenahay Minneapolis Minnesota ee cariga Mareykanka. barnaamijka maanta waxa marti iigu ah Maxamed Deeq Muuse Nuur oo loo yaqaano Deeq Darajo. kusoo dhawow Deeq Darajo barnaamijka xogta saxafiga. waad maasantahay Asmar Degan adiga iyo bahda Nabad TV. aad ayaad u maasantahay Deeqo, waxaan rabaa su'aasha u horeysa inaan ku weydiiyo maadaama uu barnaamijka yahay barnaamij aan wariyaasha ku wareysano wax ka ogaano taariikh nololeedkooda iyo waxyaalihii ay soo arkeen intay ku jireen saxaafadda. Deeq, marka hore noloshaada oo kooban ayaan doonayaa inaad noo sheegtid. Asmar waad maasantahay anigu waxa la yiraahdaa Maxamed Muuse Nuur waxaan ahay aabe leh 5 caruur ah. ما شاء الله. waxaan ahay nin xaasla ah waxaan ku noolahay dalka Mareykanka waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho dalka Soomaaliya waa caasimadii gaar ahaan waxaan ku dhashay degmada Yaaqshid xaafadda Jungle sanadka markuu ahaa 1985 kullee bisha lama xasuusto maalintan iska wadaaba warkeeda waxaan ahay nin saxafi ah oo ummadda u adeega sidoo kale waxaan ahay nin ganacsada ah. Deeq, aad ayaad u mahadsan tahay. su'aashayda labaad aan rabo inaan ogaado ayaa waxay tahay waqtigee ku soo biirtay saxaafadda. saxaafadda waxaa bilaabay sanadkii 2004 ayaa bilaabay walow sanad kadib aan soo guuray oo aan soo hayaamay dalka Koonfur Afrika. Koonfur Afrika waxaa soo galay sanadkii 2006 ayaa soo galay Asmar. waa gartay intii aad ku jirtay saxaafadda wax caqabada oo aad la kulantay ma jirtaa? nasiib wanaag aniga lama kulmin wax caqabad ah ama wax dhib ah oo saaxiibadii qaarkood ay sheegaan ama ay ka sheekeen ma la kulmin laakiin caqabaduhu waa kala duwan yihiin oo macnaha caqabad maalmeed oo kale waa la kulmi kartaa oo maalin kasta ay dhibaa ka soo gaari kara shaqadaada handadaadu waa la kulmi kartaa laakiin caqabadaha qaar ay saaxiibada ay ka sheekeen adiga aad ka warqabto oo qaarkood ay xabsiyo u galeen oo qaarkood loo dilay qaarkood dhaawacyo loo geystay qaarkood magaalada ay joogeen ay ka soo carareen taasi maana la kulmin. maxaa farqiga u dhaxeeya markii aad ahayd qof shakhsi caadi ah oo shaqaysta iyo hadda oo tahay nin bulshadu ay wada garanayso oo caana marka isbedel noocee ayaad dareemaysaa hadeer? horta isbedel horta wuu jiraa laakiin aan isbedel aad iyo aad u weyn ma arko sababtoo ah sidaad ka warqabto maanta anigu waxaan ka mid ah dadka caadiga ah waxaan isku arkaa inaan nahay qof caadi ah iskuma arko inaan nahay qof caan ah oo bulshada ka duwan iskuma arko waxaan jeclahay dadka inaan dhex galo waxaan jeclahay dadka inaan la sheekaysto jaaliyadda aan ka warqabo waxaan ka cunteeyaa maqaayadaha caadiga ah dadka ay ka cunteeyaan waxaan timaha ka jirtaa meelaha caadiga ah waxaana inta badan aniga ugu baxdaa dadkii aan la soo koray dadkii aan isku xaafadaan ahayn dadkii aan hadda isla degannahay inaan maalin kasto aan is aragno shaqadaada waa wadan kartaa saxaafadda ah laakiin qasab ma ahin in aad ka duwanaato ummadaha kale marka anigu waxaan u arkaa farqi aad u weyn maanan arkin. markii aan dhinac u dhigo shaqadaada oo ah inaad tahay wariye soo saare cameraman wax kale oo xirfado ku qarsoon miyaa jirta oo aad leedahay talent ah? Asmar sida aad ka warqabto markaan soo hana qaaday oo anigu aan soo weynaaday iyo hadda saxaafadda shaqada ugu badan oo qabto waa saxaafadda inkastoo aan macallin iskuul aan mar noqday oo macallin aan ahaa haddana 95% shaqada anigu aan qabto waa saxaafadda saxaafadda kala duwan oo aad u sii kala balaaran marka anigu waxaan dhigi karaa dhanka saxaafadda ayaan ka bariisaystaa. su'aashayda kale waxay tahay dhanka sportiska waa xagga dooqa iyo kaftanka yaa taageertaa kooxdee taageertaa ma kubadda cagta ayaa taageertaa ma kubadda kolayga ma basketballka bal dhinaca iyo dooqaaga sportiska.
sportiska Soomaalida boqolkiiba 95 waxay u badan yihiin kubadda cagta. Markii aan Mareykanka imaaday ayaan waxaan ku soo degay gobol la yiraahdo Springfield, gobolka Massachusetts, magaalada Springfield ayaan ku soo degay. Cid diris ah oo wadankan u dhalatay ayaa markayna arkeen inaan cusubnahay, wadankana ku cusubnahay, soo dhaweyn kadib ayaa waxay weydiiyeen maxaa jeceshahay. markaas waxaan ku dhahay football. markaas waxay galabta football ayaa jirto, gobolkeena ayaa la ciyaaraya gobol kale, ma jeceshahay inaad na raacdo oo aad ciyaarta soo daawato? haa aan ku dhahay waan jeclahay. bes tigidhkan ayaa kaa bixinayna dhaheen. waa la geeyey meeshii, ciyaartii aan aqaanay ciyaar ka duwan ayaan ku arkay. markaas kadib wuxuu dhahay ciyaarta ma ka helin miya? mayaan ku dhahay maanan ka helin. sababto ma sootaa ay dhahday waxaan jeclahay footballka. waxaan ku dhahay footballka anigoo aan jeclahay kan maahan. marka mid lugta lagu ciyaaraan jeclahay. aad iyo aad marka dambe ayuu fahmay, inkastoo ayaga ay soccer u yaqaanaan. anigu waxaan jeclahay ciyaaraha kubadda cagta. waxaan taageeraa kooxda Manchester United oo Ingiriiska ka ciyaarto, oo aan taageerayay in muddo ah, ilaa hadda aan taageersanahay. sidoo kale waxaan ciyaaraa kooxda waxaan jeclahay oo aan taageeraa kooxda Juventus. dhinaca Spain waxaan jeclahay oo aan taageero u ahay kooxda Real Madrid. aad ay u mahadsan tahay. deeq, maadaama aad tahay wariyo weyn, dadka kusoo biiri raba saxaafadda hadeer maxaad dhihi lahayd oo dhihi lahayd saasi anigu iigu fududaadee wadadaas mara kula talin lahayd? aniga iskuma arko inaan ahay wariyo weyn, weli waxaan isku tiriyaa inaan ka mid ahay wariyaasha yaryar. saxaafadda asmaraya qofka haddii uu isaga ay ka go-an tahay inuu saxafi noqdo, oo hobbigiisa ay tahay, oo qofkaasi saxaafadda uu jecel yahay, horta wuu ka miro keenaya. horta number 1 wuu ka miro keenayaa, hamigiisana waa uu gaarayaa. tusaale ahaan anigu markaan saxaafadda soo galayay asmar, dad badan ay ugu dhiirigeliyeen inaan saxaafadda aan soo galo oo saxaafadda aan ka mid noqdo. anigu marka waxaan dhihi lahaa qofka raba inuu saxaafadda soo galo, number 1 inuu iska dhiso aqoonta, number 2 inuu iska dhiso xirfadda. sababtoo saxaafadda hadda waxay kusoo aroortay xirfad, macnaha inaad taqaano wax xirfad ah, amba codka aad jarjaran karto, muuqaalka aad duuban karto, kaamirada adiga aad duubi karto, qoraalka aad qori karto. marka waxaan dhihi lahaa qofka iskuul tag, wax baro, saxaafadda baro, kadibna fursad u hel inaad tababar hesho. intaasaa kula tali lahaa. aad u mahadsan tahay. deeqow, haddii aan ku weydiiyo, haddii aan idhaahdo maanta waxaan casuumayaa deeq darajo, cuntadee jeceshahay oo qofka lagu casuuma oo kugu casuuma adiga? dhanka cuntada anigu kuma fiicni. saaxiibaday waxay dhahaan deeq, saaxiibkay deeq meelaha uu ku liito waxaa ka mid ah cuntada. aniguna waan is ogahay. dhanka cuntada anigu waxaan jeclahay cunto Soomaali. markii Mareykanka la yimaado arab og tahay cunto Soomaali inta badan lama helo maqaayadaha iyo dadka laguma casuumo. anigu waxaan jeclahay soorta, waxaan jeclahay digirta, waxaan jeclahay briiska iyo baastada, hilibka ayaan jeclahay, jikinka iyo digaaga lima dhaweeyo. canjeerada iskuma fiicnidin? canjeerada haddaan ku quraacan waxaan aaminsanahay in maalintaasi wax badan ay ka qaldan tahay oo aan kasoo bilaabin, waana dubi aqaanaa. waxaan kaloo aan aad iyo aad aan u jeclahay shaah. waa gartay. deeqow, waxaan rabaa inaad iiga warantid safarkii kuugu dheeraa kuuguna daalka badnaa ee aad gasho intaa nooleed. safarkii igu dheeraa wuxuu u dhaxeeyay Tanzania iyo Malawi. waa laba wadan oo daris ah oo qaaradda Afrika ku yaala. waxaan u socday 22 casho. hadiyan maalintii aan kasoo bixayna Dar es Salaam waxaa nala sheegay inaan ku tagayno in ka yar hal maalin, laakiin waad og tahay markaad tahriibaysid way adag tahay inaad tagto. gaarigiyaa naga jabay, waddada noogu jabay, sharciyo ma wadano,
markaas South Africa usii soconay marka in aan gaarno caasimadda Malawi ayaa waqti badan ugu qaatay safarkaas ayaa ahaa mid daal badan dhib badan dhowr maalin ayaa waxaan jiifnay meel bannaan ah oo duur ah ninka muqallaska oo xilligaasina waday oo garab nagu siinaya safarka ayaa noo imaanaya cunto noo keenaya maalin cunto ma jirto inkastoo meel beera ah ay ahayd aan cunaynay cambe iyo apple iyo tufaax iyo aan helaynay haddana wuxuu ahaa safar daal badan dhib badan wuxuu ahaa dheer waalid aan la hadli karta ma jirto walaal aan la hadli karta ma jirto marka dhib badan aan ka soo marnay waa gartay haddii aan Deeq Darajo weydiino xaguu jecel yahay adduunka inuu noloshiisa ku dhammaysto xageed diilay waxaan dhihi lahaa xaafadda jungle ee degmada Yaaqshid oo ah halkii aan ku dhashay oo muddo 17 sano ku dhawaad aan ka soo maqanahay wadreemi kartaa meeshii aad ku dhalatay meeshii aad ku soo barbaartay meeshii ay saaxiibada iyo walaalaha iyo waalidka iyo walaalaha ay degan yihiin halkaas ayaan jeclaan lahaa hami badan iyo hilow badan aan u qabo oo aan jeclaa in dhawaan aan ku laabto doo Ilaahay yiraahdo marka haddii ay tahay meeshii aan jeclaan lahaa inaan ku nasto oo aan ku dego oo aan ku noqdo xaafadaasi sababtoo waxaan u kala qana luqluq xaafadahaasi u kala baxaan aqaanay meelo badan oo aan kubad ku soo ciyaara ayaa meeshaas ku taala xasuus badan ayay igu leedahay waa meeshii aan wax ku soo bartay marka meeshii aan ka soo bilaabay ayaan jeclaan lahaa inaan ku dambeeyo ما شاء الله أنيقو أوج أو حمرنا كقدم بإني واحد بدن يسبدشي وحن رجينا يا هذا مركاو كلها بتينا حافظي بحافظي هين ويسيب بدن أو آد هرمر أولى أي سماسي أي دسمتي واجي آد جوكتي أدي غير أي حد يسن سكمي دهين وحن رجينا إني نبض نقطة وارتا آد كنت تكون ولا تكون راح يستيد بالكاغو هويو برنامجك وحن كجرنا جنتيسي يجيب جبديسي deeq maxaa jeceshahay fursadan ugu dambaysa hadii aan ku siiyo inaad kaga faa'iideysatid waxaan jeclaan lahaa horta Soomaalidu inay israacdo shanta Soomaali ay israacdo Soomaalidu ay midowdo waxaan jeclaan lahaa in qof kasta oo Soomaali ah uu nabadda ka taliyo oo isagoo ka bilaabo bal inuu nabadii raadiyo waxaan sidoo kale jeclaan lahaa dalkeena oo nabad ah inaan ku wada noqono dhamaanteen Soomaaliya nabad ah waad ogtahay asmar qorbaha dhibaatada lagala kulmo inkastoo nabad iska haysato dhaqaale aad iska heli karto aad iska shaqaysato haddana boqolkiiba boqol qofka markaad weydiiso qof ku faraxsan ma jirto marka waxaan aniga oran lahaa waxaan jeclaan lahaa in qof kasta oo Soomaaliyeed oo nabadda ka shaqeeyo dalkaasna aan u tashano insha Allah aad u mahadsantahay Deeq Darajo kaasina wuxuu ahaa Maxamed Deeq Muuse oo loo yaqaan Maxamed Deeq Darajo barnaamijkeeni intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa inta aan mid kan la mid ku kulmi doono anigoo ah Asmar Cabdi Nuur waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo